sidaas darteed maxkamaddu waxay ku xukuntay eedaysanayaasha kala ah cabdi cismaan cabdullaahi ina safiyo daahir wehliye 23 jir ah ku dhashay godin laba degan cada kibir galad axmed xuseyn ina safiyo cabdi faarax 23 jir ah ku dhashay degan cada kibir tacsiir 5 sano ah oo xabsi ah sida ku cad kitaabka muqniga juska afraad safxada 253 sidoo kale waxay ku xukuntay ayuub maxamed cabdi ina astaahil cabdi cali 25 jir ah ku dhashay cadaado degan cada kibir 3 sano oo xabsi tacsiir ah waxay ku xukuntay eedaysanayaasha kala ah cabdi cismaan cabdullaahi ina safiyo daahir wehliye 23 jir ah ku dhashay godin laba degan cada kibir galad axmed xuseyn ina safiyo cabdi faarax 23 jir ah ku dhashay degan cada kibir maxkamaddu markii ay aragtay gal dacwadeedka ciqaabta ah ee lambarkiisu uu yahay 1025 ayna eedaysanayaal ka yihiin cabdi cismaan cabdullaahi ina safiyo daahir wehliye 23 jir ah ku dhashay godin laba degan cada kibir iyo ayuub maxamed cabdi ina hooye astaah cabdi cali 25 jir ah ku dhashay cadaado degan cada kibir 3 galad axmed xuseyn ina sacdiyo cabdi faarax 23 jir ah ku dhashay degan cada kibir maxkamaddu markay aragtay xaashida eedda ee xafiiska xariiraanta guud ee galmudug kuna taariikhaysan 12 bisha 10aad 2025 maxkamaddu markay u akhrisay una sharaxday kuna wargelisay eedaysanayaasha eedda loo haysto si waafaqsan qodobka 103 xeerka habka ciqaabta Soomaaliyeed farqada koobaad xarafka B iyo ka labaad xarafka A B C kuna jawaabeen eedaysanayaashu si waafaqsan qodobka 104 farqada koobaad xarafka C ee xeerka habka ciqaabta Soomaaliyeed oo ah maanaan gelin dambigaas maxkamaddu markii ay dhageysatay dooda xafiiska xariiraanta guud ee galmudug iyo cadeymaha oo soo gudbiyay si waafaqsan qodobka 114 110 163 xeerka habka ciqaabta Soomaaliyeed maxkamaddu markii ay dhageysatay difaaca qareennada eedaysanayaasha si waafaqsan qodobka 116 xeerka habka ciqaabta Soomaaliyeed maxkamaddu markii ay dhageysatay gabagabada dhinacyada dacwadda si waafaqsan qodobka 119 xeerka habka ciqaabta Soomaaliyeed maxkamaddu markii ay dhageysatay dhinacyada kuna sameysay qiimeyn dhameystiran cadeymihii ay soo gudbiyeen si waafaqsan qodobka 202 xeerka habka ciqaabta Soomaaliyeed maxkamaddu markii ay aragtay aayadda 58 ee suuratul nisaa maxkamaddu markii ay aragtay kitaabka majmuucu nawawi juska 20aad boga 283 maxkamaddu markay aragtay kitaabka tuhfatul minhaaj juska 9aad boga 320 maxkamaddu markii ay aragtay xadiiska saxiix muslim ee nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam lambarkiisu uu yahay 342 ee kitaabul ahkaam maxkamaddu markii ay u soo jeedisay walidamka ama dadkii dhaxlayay marxuumeynta ayna diideen in ay dhaartaan ama ay dhaarsadaan eedaysanayaasha xukunka maxkamadda gobolka Galgaduud iyadoo oo cuskanaysa asbaabaha sare ku xusan isla markaana raacaysa qodobada kala ah 110 163 181 182 122 ee xeerka habka ciqaabta Soomaaliyeed waxay ku weysay eedaysanayaasha kala ah lambar 1 cabdi cismaan cabdullaahi ina safiyo daahir wehliye 23 jir ah ku dhashay godin laba degan cada kibir galad axmed xuseyn ina safiyo cabdi faarax 23 jir ah ku dhashay degan cada kibir ayuub maxamed cabdi ina astaahil cabdi cali 25 jir ah
كل شيء عداده دجن عدا كبير محكمة وحي كويسي قضبك أفر بقول صدن إيو أفر حركة عقابة الصوماليات وحينكو هالشيء قرينو مؤكدة أو أي ك لا سميس إن أي دارتان ورثة مرحومينتي لمتي أين الديدين إن أي دارتان سيداس درتيد محكمة وحي كو حكمتي هذا سنياشة كلا عبدي عثمان عبد الله إن صفية ظاهر وهلية لباتن يسدح جرأة كل شيء قدن لبيت دقن عدا كبير قلت أحمد حسين إن صفية عبدي فارح سدح لباتن جرأة كل شيء دقن عدا كبير تعسير 5 سنة وحبسي سيدا كوعد كتابك مغنقة جزء أفراد صفحة لما بقول كنتن إيا صدح سيدا كلا وحيكو حكمتي أيوب محمد عبدي إنا أستاهل عبد علي 25 جرأة كل شيء عداده دقن عدا كبير 3 سنة وحبسي تعسير عدي أنكو قناع سنين وحا أفرا رعفان صدا عشاء وبالله توفيق